tobankii bishii sagaalaad sanadii 2012 ayay ahayd munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya loo doortay Professor Xasan Sheekh Maxamuud. 3 sano ayaa ka soo wareegtay qabashada xilka madaxtinimo ee ummadda Soomaaliyeed waxaana munaasabad xal lagu dabaaldegay lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay madax iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ka mid yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadan lagu dabaaldegayay ra'iisul wasaaraha dalka Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wasiiro xildhibaano aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in 6 qodob oo markii uu tartamay xilka madaxtinimo ee ummadda Soomaaliyeed oo ka hor sheegay baarlamaanka Soomaaliya ay wax badan ka qabsoomeen ayna ka mid yihiin ammaanka iyo garsoorka dalka Soomaaliya. in badan waati laga waramay daayneena dusheedan joognaa ayaa maalin lagu naaloonayay lagu faraxsanaa sida ay gabadhii halkan nagala hadashay hadaatay ay noo tilmaantay maantana waa inaan ku naaloonaa dalka afartiisa dacal inaan joogno oo maalin walba qalab cusub iyo teknolojiyo cusub iyo dadaal cusub iyo maalin walba aan oo ku sii kordhayo awoodda ciidamadeena iyo dadaalkeena marka ayaduna amniga halkaas uu maraya maanta ciidamadeena militariga booliiska nabad sugidda asluubta maanta in ay wax cad wadacado la garanayo inay ku taagan yihiin amniga dalka sidii loogu soo celi lahaa baarlamaankana shuruucdii muhiimka u ahayd amniga qaarna inuu dhammaystiray qaarna uu gacanta ku hayo oo dhawaan ay dhammaan doonaan adeegii bulshada dhinaca cadaaladda nidaam cadaaladeed aan lahaan jirin oo dawladnimadeena waagaa jirta ku salaysnaa nidaamkii hal la bedelaa la dhahay bedelaadiisii marka ma sahlan waqti badan ay qaadanaysay gabagabo u maraa marka hadda reformkii iyo bedelkii ku socday wuxuu maraa meel gabagaba ah ayuu marayaa guddiga adeega garsoorka inuu sameysmo oo maamulka garsoorka dalka oo dhan gacanta ku hayn lahaa oo ka madax bannaan siyaasad oo ka madax bannaan qabiil oo ka madax bannaan waxa la sheegay oo dhan oo ku salaysan oo kaliya qawaaniinta maxaan ku iraahdaa dalka iyo dadkii u adeegi lahaa iyo maamulkeedii idaarinteedii sidoo gabagabo maanta maraya asigana. dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay intii uu hayay xilka ummadda Soomaaliyeed inuu subax faragelin ku sameyn hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya. waxaan rabaa inaan faano waa la ii ogolaanaa u maleynaa macnaha ma aha faan ma laakiin xaqiiqada dhabta ay jirto inta aan soo joogay dalkan aan madaxweynaha u ahay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed dalkeena record uu leeyahay taariikh uu leeyahay documenti uu leeyahay hay'adaha dawladda maanta midan documentigeeda xafiiskeeda aanu oolin ama aan la heli karin meesha kale laga heli karin ma jirto 3 sano ee dalka aan soo joogay ma dhicin mar hal maalin ama hal mar oo hay'adaha maamulka maaliyadda dawladda hayo warqad intaan u qoray lacagtaas hal la bixiyo ama lacagtaas hal la joojiyo ama qofkan lacagtaas hal la siiyo aan dhahay marna ma dhicin حتى lacagtaasi haday sharci tahay xataa dad Soomaaliyeed oo dawladda deyn ku lahaa jiro oo deyman badan dawladda ay ka qabtay horay aniga iga hor iyo intaan anigu maamulka joogay intaasoo dad waa ii iimaanayeen ayagoo cabanayo in hanti badan ay dawladda ka jirto midaan warqad u qoran in lacagtan hal la siiyo iyo midaan warqadii oo watay aan dusha uga qoray oo anigu aan saxiixayo in lacagta hal la siiyo wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ee qaranka way joogaan xafiisadooda waa laga soo baari karaa haddii hal midoo ka mid la soo helayo. 3 sano ayaa ka soo wareegtay markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya munaasabad ka dhacday loogu doortay hogaamiyaha ummadda Soomaaliyeed balse waxaa jira dad badan oo dhaliilsan siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay qayb ka tahay mooshin ay dhawaan ka keeneen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo hadda hortaala baarlamaanka Soomaaliyeed.